Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku eegaynaa falanqaynta weeygan inagoo kasoo bilaabaynaa YouTube listiga Diegas waa inagoo ku bilaabaynaa. Falanqayntii wiigii hore suuqu wuxuu marayay halkaas waxaana nidhi jaanis kastoo dhowna waan ka faa'iidaysananaa downtrena. Halkaas ayuu suuqu wiigii hore marayay waxaana nidhi jaanis kastoo downtrena waan ka faa'iidaysananaa. Waxaana nidhi ilaa halkaasuu jebinayaa. Marka jaaniska keliya taan gelaynaa waxa weeyaan downtrain. waxaan u malaynaya inaad ka faa'iidaysateen dhammaantiinba. haddaan Diegas waa igu nimaadno jaaniska keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa in hoos loo sii socdo. jihada keliya tan Diegas waa ka sugaya waxa weeyaan waa downtrain. hadday imika halkaa ka kacdo in yar waxay samayn kartaa correction yar, in yar bay kici kartaa ilaa meelahaas, kadibna waa lasoo dhici karaa. marka wiikan soo socda waxaan ka sugayaa Diegas waa downtrain. haddii ay halkaa ka kacdo markasta waxaan ka sugayaa waa down. inkastoo aanay halkaa gaadhayn laakiin markasta waxaan ka sugayaa waxa weeyaan correction yan siniinta ilaa meelahaas, kadibna way soo dhici kartaa ilaa halkaas waa la jebin karaa. marka Diegas waa chance keliya tan ka sugayaa waxa weeyaan waa downtrain. Euro USD wiigii hore waxaan idhi halkaas ayay maraysay, waxaan idhi correction baa la gelaya kadibna uptrain ayaa sida lagu aadaya. marka waxaa la jebin karaa xaggaas ilaa xaggaas. Euro USD waa tan suuqu wuxuu marayay halkaas meelahaas ayuu marayay. waxaan idhi correction yar baa la gelayaa, kor ayaa la aadaya. marka chance keliya tan Euro USD ka sugaya waxa weeyaan waa uptrainkaas. uptrainkiina waa uu bilaabmay. waxaan u malaynayaa inaad ka faa'iidaysatay. waxaan idhi halkaa waa la jebinayaa, halkaana waa la jebinayaa. haddaan u nimaadno haddaba wiigan Euro USD waxa la sameeyey impulse correction, inkastoo kani u yareegaya hal move, laakiin dadka waxa lagaga dhufanayay dadkii meelaha ka galay ayaa lagaga dhufanayay liquidity-gii. dad badan oo meelaha ka galay oo asalka interiga keenay laga yaaba ama asalka u daystayba oo islahaa ilaa meelaha halkaas sare ayaa la jebinayaa ayaa lagaga dhufanaya. marka waxaan u malaynayaa correction kan inuu dhamaaday. suuqa waxaan ka sugayaa waa uptrain. janiska keliya tan suuqan ka gelayaa Euro USD waxa weeyaan waa up. jihada keliya tan Euro USD ka sugayaana waa uptrain. correction waa lasoo yar dhici karaa, correction waa la yar geli karaa, in yar baa lasoo dhici karaa, laakiin janiska mar kastaba ka sugaya waxa weeyaan waa uptrain. imka halka ay marayso in yar intii sidaa usoo dhacdo toos way ka kici kartaa. siday u badan tahayna waxa weeyaan in xaggan ay kor uga kici karto, correction la geli karo, kor u kici karto, correction la geli karo, kor u kici karto, ilaa halkii baa la gaadhaya. ugu yaraan ilaa halkaa waa la jebinaya. GBP USD haddaan u imaado wiigii hore halkaas ayay maraysay. waxaana idhi GBP USD uptrain dheer ayaa soo socda. impulse correction, impulse correction. janiska keliya tan sugayaana waxa weeyaan waa chance keliya tan sugayaana waxa weeyaan waa uptrain. GBP USD haddaan u imaado suuqu halku marayay wiigii hore halkaasay ahayd. wataas waxaa la sameeyey impulse correction, impulse. imka correctionkii ayaa lagu jiraa. waxaan u malaynaya intaas inaad ka faa'iidaysatay ilaa iyo boqol bib ayuu dhaqaaqay. mar kastaba waxaan kugula sheer garaynaya waxa weeyaan jihada guud maaha inaan ku leeyahay markiiba isku tuur keliyaat. waxa weeyaan haddii istaraatiijiyadaada ku waafaqdo inaad bayga trainku dhinacu socdo ka qayb qaadatid. imika haddaan u imaado GBP USD waxaan ka sugayaa correction yaroo kale, kadibna uptrain, correction kale, uptrain. marka jihada keliya tan GBP geli karaa ama aan ka sugayaa waxa weeyaan waa uptrain, correction, impulse, correction, impulse. jihada keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa uptrain. jaanis kastoo halkan uu siliga siiyo qaadan maayo. mar kasta waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa uptrain. NZD halkaasii maraysay. waxaan idhi correction ayaa la geli karaa kadibna uptrain. marka janiska keliya ta aan suuqan ka sugaya NZD waxa weeyaan waa uptrain. halkaas ayuu wiigii hore marayay, halkaas ayuu marayay suuqu, meelahaasuu marayay. kor ayaa in yar laaday, correction baa sidaa loo galay. halkan oo kale janis buu naga siiyey, kor ayaa sidaa loo aaday. marka qof kastoo halkan kasoo galay waxaan u malaynayaa inuu fursadda uptrainka uu ka faa'iidaystay. NZD haddaba imika haddaan u nimaadno mar kasta waxaan ka sugayaa in halkaa la jebiyo, halkaana waa la jebin karaa. marka waxaan ka sugayaa
in yaroo correctiona, impulse, correction kale, impulse, correction kale, impulse. marka mar kastaba jihadan u geliya waxa weeyaan waa up train. jihada keliya taan ka sugayaa NZD/USD waa maxay? waa up. marka imkan yar waa lasii aadi karaa in yar hoos kadibna kor ayaa la aadi karaa. marka mar kastaba jihadan isku diyaarinaya ama chanskayga ka raadsanaya waxa weeyaan waa up train. ilaa halkee baa la gaari karaa ugu yaraan? halkaa waa la jebin karaa, halkaana waa la jebin karaa. AUD/USD, AUD/USD waxaan soo sheegay inay AUD/USD ay correction aadi karto, laakiin jihada guudaan ka sugaya mar kasta waxa weeyaan waa buy. AUD/USD haddaan tagno, AUD/USD wiigii hore meelahaas la marayay, wiigii hore meelahan ayaa la marayay, wax lasoo yaro galay correction, impulse, dana correction. imka chance keliya tan ka sugaya waxa weeyaan fursadan waxa weeyaan waa up train. jihada keliya tan u gelayana waxa weeyaan waa up train. marka chance hadduu iga siiyo AUD/USD waan qaadanaya, haddii aanu chance iga siina waan iska daynaya. marka tan waxa u yaraagtay inay correctionka lagu sii yaraadi waqti lagu sii qaadan doono, kadibna up train mar kasta uu soo socda. jihada keliya tan u gelaya waxa weeyaan waa up train. marka fursadu hadday xaggan hoose meelaha hoose kaa soo siiso waa soo qaadan kartaa. chance kastuu suuqani correction igu siiyo waan sii raacaya, correction waan sii raacaya. marka ilaa ugu yaraan waxaa la gaari karaa halkaas waa la jebin karaa. halka haddii la jebiyo waxa weeyaan ilaayo meelahaas waa la gaari karaa. marka badanka suunka haya suuqani waxa weeyaan waa down trainkaas weeyaan. marka halka haddii la jebiyo toos ayuu suuqani up train isku bedelaya. weli waa down train, laakiin fursada keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa impulse, correction, impulse, correction. marka impulse haddii halkan laga aado, correctionkani kula hadlaya wuxuu kuu sheegaya inuu kor la aadayo. marka correctionka anigoo hela mooyaane suuqan fursadan ka sugaya ma jirto. laakiin jihada guudi waxa weeyaan, jihadan suuqan ka sugaya waxa weeyaan waa up train. fursad kastoo salow halkan iga siiya qaadan maayo. waxaan isku diyaarinaya waxa weeyaan suuqan inuu aado up train. waxaan u malaynayaa USD/CHF inaa ka faa'iidaystay. suuqu halkaas u marayay waxaan idhi impulse correction baa la yargelayaa, impulse correction kale, haddana impulse ilaa xaggaa hoose waa la jebin karaa. USD/CHF haddaan sidaa u tagno, USD/CHF wiigii hore halkaasay maraysay, meelahaas ayay maraysay, meelahaas ayay maraysay. marka waxaa idhi qofkii halkaa kasoo galay waa perfect, waa intrigii ugu saxsana. halkaas aniga chance ayuu iga siiyey. marka suuqani wuxuu sameeyey correction, impulse, correction, impulse. imkana correction ayaa lagu jiraa. marka halkii aan idhi waa la jebinaya ilaa halkaasay ahayd, waa halkaas waa la gaadhay. marka waxaan rajaynayaa imka suuqan waxaan ka sugayaa keliyaat waxa weeyaan inuu correction, sida correction buu imka ku jiraa. chance kastoo up down traina, chance kastoo down traina oo halkaa ka bilowda waan sii raacaya. chance kastoo down traina haddii aad halkaa kasoo gashay oo ilaa halkan aad haysi waa perfect. haddii kalena chance kastoo sala oo meelahan kaa siiyo waad raaci kartaa. weli down trainkii in badan ayaa u dhiman. ilaa halkaa waa la jebin karaa, ilaa halkaana waa la jebin karaa. marka NZD/USD, USD/CHF waxaan ka sugayaa waa down train. USD/CHF, USD/CHF waxaan idhi wiigii hore waxaa la aadayaa down train. impulse baa soo dhacaya, correction baa la geli karaa, kadibna impulse. chance kastoo down traina waan ka faa'iidaysanayaa. si fiican ay USD Japai usoo dhacday wiigii hore meelahaas ay la marayay. wiigii hore halkii la marayay waxay ahayd meelahaas ay ahayd. marka way soo dhacday, correction baa sidaa loo soo galay, way soo dhacday. imkan yaroo correctiona lagu jira. waxaan ka sugayaa mar kastaba chance kastoo down traina waan qaadanaya. correction, impulse, correction, impulse. marka chancekan ka sugayaa USD/CHF waxa weeyaan, USD Japai ma ujeeda waxa weeyaan waa down train. chance kastoo down halkaa uu ka bilaabmi karaa imka la marayo in yar buu kor uga kici karaa. mar kasta waxaan ka sugayaa waxa weeyaan, chancekan ka sugayaa waxa weeyaan waa down train. USD/CHF waxaan ka sugayaa waxa weeyaan USD Japai, chancekan ka sugayaa waxa weeyaan waa down train. ugu yaraan wax la jebin karaa halkaa imka laga soo noqday waa la jebin karaa, ilaa halkaasna waa la gaari karaa. marka USD Japai chancekan ka sugaya waxa weeyaan waa down train. dahabka haddaan u nimaadno, dahabka waxaan idhi waxaa la gaari karaa 2005, kadibna halkaas waxaa kasoo bilaabmaya down train. marka dahabka halkii aan sheegayaan yidhi waa la gaadhaya, wataa waa la gaadhay. wiig baa sidaa uga soo noqday, waxaa la bilaabay impulse, correction yar, impulse. imka kor ayaa sidaa loogu noqday, waxaa lagaga soo noqday impulse, correction. moveka waa soo raaci karaysay halkaa meelahaas ilaa intaas, ilaa wuxuu ahaa intaas keliya waxay ahayd ilaa
500 oo bib ay ahayd. Marka chance aad u fiican baa halkaa ku jiray, qofkii ka faa'iidaystay waa well done. Haddii aanad ka faa'iidaysan imika waxa sugtaa imika, waxaan rajaynayaa correction inaa sidaa loo soo galo one move oo kor lasii aado. Marka correction kan ayaa ku xidhnaanaysa haddii suuqu sidaa usoo dhaco, correction sidaa usoo galo, hal move ayaa suuqan waxa lasii aadayaa downtrend. Laakiin haddii halkan uu ku ekaado suuqani sidaa noqdo, impulse correction kor ayaa sida loo aadaya. Marka dahabku wuxuu marayaa meel aan imika la go'aamin karin. Marka markasta waxay ku xidhantahay suuqu aaggan wuxuu ka sameeyo. Haddii uu suuqani halkan ka sameeyo impulse correction, impulse waxa weeyaan suuqani ilaa iyo halkaas waa uu jebin karaa, oo haddana correction kala sameeyo sidaas ilaa halkaa uu jebin karaa. Laakiin suuqani hadduu sidaa u sameeyo imika, hadduu sidan u sameeyo correction oo saasa, waxa weeyaan suuqani kor ayuu aadaya. Marka dahabku labada dhinac buu aadi karaa. Waxaa muhiim ah inaad sugtid markastaba correction kale, waa inaad sugtid correction. Marka kani correction uu noqon karaa imka in yar inta sida loo soo dhaco ayaa in yar sida loo soo dhici karaa, haddana saas oo kale correction yar oo aan speed ku socon, awood lahayn. Marka kani wuxuu ku tilmaamayaa in kor la aadayo. Laakiin haddii uu xoog sida ugu soo dhaco correction sida uu kuu sameeyo, waxa weeyaan oo mar kale soo dhaco waxa weeyaan ilaa halkan hoose waa la jebin karaa. Marka dahabka waxaan ka sugayaa inuu weekend uu iscadeeyo halka uu aaday insha Allah. Intaas ayaan analyzingka ku joojinayaa. Fadlan haddii aad channelka ku cusubtahay, fadlan subscribe saar. Haddii aad hore noola socotayna like-ta fadlan nagu caawi si aan weeka dambena analyzingka usii wadno.